السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود القصير وهذا channel كان سيال كميد يا قطبدين وين ما انتو هاي كليهين مدحوينها مريكان كدون ترام oo si kuluga hadlay dhacdadii lagu dilay ninkii madowga ahaa qodobadana kalena waxa kamid ah Turkiga oo awood military ku xoojiyay dawladda Liibiya xilli laga adkaaday Janaal Qadi Xaftar magaciiba waa Maslahan Siifulna dam cusub ee channel-kan subscribe inoo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbaahinada nagu dambeysay adigoo maadsan haatan ku soo dhawaad warkii faahfaahsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa naxdin musiibo ku tilmaamay dilkii magaalada Minneapolis loo geystay ninkii madowga ah Sergio Floyd. Trump waxa uu ka codsaday FBI iyo waaxda cadaaladda dalkaasi inay tallaabo ka qaadaan marka ay soo afjaraan baaritaanada ku saabsan dhacdadaasi. Wuxuu sidoo kale u tacsiyay qoysaskii iyo eheladii Sergio Floyd. rabshado ka dhacay dilkii ninkii madowga ah ee u geystay booliska Minneapolis ayaa isku bedelay rabshado iyo khasaare ka dhashay waxaana la boobay dukaamo waaweyn ee dalkaasi. rabshadahan ayaa cirka ku shareeray kadib markii ay booliska sunta dadka ilmisiya iyo risaasta raacabka u adeegsadeen dibadbaxyaan aan hubaysnayn oo sida ay sheegayeen doonayeen inay si nabad ah ugu mudahararaan dilkii ninkii madowga ahaa. dawladda Turkiga ayaa awood military oo dheeraad ah ku dadgureynaysa gudaha dalka Liibiya oo ka socdo loolan adag oo u dhexeeya dawlado badan. maalmihii la soo dhaafay dawladda Turkiga ayaa sameysay waddo dhanka hawada ah oo labada dal si toos ah u xiraysa iyadoo diyaaradaha xamuulka ee gawaarida gaashamaan iyo sanado kale oo military ku soo daadinaysa magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Liibiya ee lagu magacaabo Misratiya. saldhigga ugu weyn Turkiga ay ku leeyihiin dalka Liibiya gaar ahaan garoonka diyaaradaha Misratiya ayaa waxaa maalin kasta ka dega diyaaradaha noocoodu uu yahay C-130 oo ah kuwa xambaara gaadiidka iyadoo la rumaysan yahay in halkaasi laga dejiyay gawaarida nooca xabadda aan karin. laba diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo ay soo saartay Shiinaha ayaa toddobaadyo ka hor lagu soo rogay dalka Liibiya iyadoo loo adeegsaday qalabka Turkiga ku rakibay gudaha dalkaasi. dhanka kale Turkiga ayaa la sheegayaa inay ku xoojiyeen saldhigga ku yaala magaalada caasimadda Tripoli diyaaradaha casriga ee aan lahayn duuliyaha loo yaqaan Patrick. tallaabadan ay Turkiga ku xoojinaysa awoodda military ee Liibiya ayaa ku soo aadaysa kadib markii Janaal Qadi Xaftar uu ku hanjabay inuu ciidamada Turkiga ee ku sugan Liibiya uu ku dhigi doono cashil aan laban ah. dawladda Turkiga, Talyaaniga iyo Qatar ayaa heshiis ku ah inay taageero dhinac walba ay siiyaan dawladda Liibiya oo ay aqoonsan tahay qaramada midoobay. sidoo kale dawladda Faransiiska, Imaaraadka Carabta, Ruushka, Masar, Sacuudiga iyo Suudaan ayaa iyagana la safan Janaal Qadi Xaftar oo raba inuu awood military ku qabsado dalka Liibiya. gudahantaas ayuu noogu egyahay wixii warar dalkii dibadda naga soo gaaray. intaan war caynkan oo kale aan kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.